qisadani waa qiso cajiib ah oo soo jiidatay indhaha Soomaalida. Qisadani waxay ahayd gabadh walaalkeed nafteeda u hurtay. Gabadhani waxaa la yiraahdaa Raxmo Xaaji Cabdiraxmaan. Raxmo waxay ahayd ardayad dhigato kulliyadda heerka koowaad, hase yeeshee walaalkeed ayay soo wajahday xaalad adag oo caafimaad. Walaalkeed Xamsa ayaa waxa fariistay dhammaan kiliyaha waa ayna shaqayn waayeen. Raxmo oo jaamacadda dhiganaysay ayaa waxay go'aansatay in ay walaalkeed u saarto mid ka mid ah labadeeda kiliyood. Raxmo go'aankii ay qaadatay waa ay ku guuleysatay oo walaalkeed Ilaahay waa ku badbaadiyay. Raxmo markii koowaad maadaama ay qalliin gashay oo keli laga saaray imtixaankii way ku dhacday, laakiin dadaal badan kadib jaamacaddii ayay dib ugu qalin jabisay iyadoo weliba walaalkeed uu la socdo oo sawir uu la galay farxad iyo reerayna ay wada qaadanayaan. Walwal iyo fikir toona iguma hayso, aad ayaana ugu faraxsanahay markaan qaatay go'aanka inuu maanta kilidayda inuu adduunka ku joogo walaalkay. Waxay ii tahay nasiib aad u weyn, aniguna kilida kale ayaan ku noolaanayaa inta noloshayda ka hadhay ayay tiri Raxmo. Xaqiiqatan tani waa qiso cajaa'ib ah, waa walaalnimo, naf isu hurid iyo isgarabsiin. Adigu daawade, walaalka walaasha ma u saari lahayd kilidaada haddii noloshiisu ay ku xiran tahay? Raxmo maanta walaalkeed waa nool yahay, wuuna wacan yahay, ayada ayuuna maanta la mid yahay. Hal kili oo teeda ah ayay iyadu ku nooshahay, isaguna kilideedii kale ayaa loo geliyay oo uu ku nool yahay. Tani Raxmo waxay u tahay farxad gooni ah iyo reereyn qaali ah. Walaalkeedna nafteeda ayay u hodhay, waayo qofka inuu qayb jirkiisa ka mid ah kuu qalo ku siiyo waa wax aan marnaba la heli karin. Qofkana waa qofka noloshaada xididka waa walaal dhaba. Raxmana waxa ay muujisay dareen walaalnimo, isku tiirsanaan iyo naf isu hurid. Walaalkeed maanta waa uu nool yahay, waana uu garab taagan yahay. Barina waxaa laga yaabaa in waxaana suurtagal ah in muddo badan uu ku noolaado kilideeda, iyadana halkaa kili ay haysato. Tani waa guul weyn oo u soo hoyatay Raxmo. Naxariistii iyo dadaalkii ay u fidisay walaalkeed, iyada iyo walaalkeed labaduba maanta Ilaahay waa ku badbaadiyay, waa ay nool yihiin oo dadkoodu ayay ka mid yihiin, wayna isgarabsanayaan. Adigu ma samayn lahayd sidaan oo kale, mise waxaad fiirin lahayd taada oo waxaad dhihi lahayd haddii aniga la iqalo amaan operation galo waxaa weeye nafteyda ayay halis ku tahay, mise naftaada waad u huri lahayd walaalka ama walaasha? Commentiga nagula wadaag wixii fikirkaaga ah ama wixii adigu aad samayn lahayd.